Halkan waa Malmo, waa magaalada saddexaad ee dalka Sweden. Waxay xuduud la leedahay caasimadda Denmark ee Copenhagen. Waxaa maanta ka dhacaya isu soo bax ay dhigayaan qoysas ka kala yimid qaybo ka mid ah dalka Sweden. Badankood waxay u badan yihiin dadka ka soo jeeda dunida Muslimka ah, gaar ahaan waddamada Carabta oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Waxay dhammaantood ka cabanayaan in carruurtii ay dhaleen oo si qasab ah looga kaxaystay kadib markii ay hay'adaha qaabilsan daryeelka carruurta ay arrintaasi go'aamiyeen. Qoysaskan inta badan waa ay ku cusub yihiin waddanka Sweden. Qaar ka mid ah waxaa ku adag inay fahmaan luqadda iyo dhaqanka waddankan. Intaas waxaa u dheer dhibaatooyin ka haysta qoysaskan dhinaca guryo la'aanta, shaqo yarida, iyo dhaqaalaha soo gala oo aad u yar. Inta badan hay'adaha dowladdu waxay sheegaan in carruurta ay ka qaadeen waalidkii dhalay ay ku dhaceen dhibaatooyin loo geystay iyo daryeel la'aan baahsan. Eedeymahaas waalidiin badan ayaa u arka in ay tahay mid xaqiiqda ka fog oo lagu bannaystay in carruurtoodii lala wareegay. Waa dhibaato baahsan oo aan indhaha laga qarsan karin. Waxaa haysta waalidiintan, maamulada magaalooyinka, iyo guud ahaan dalka Sweden ayay arrintani dood adag ka dhalisay. Sidoo kale warbaahinta caalamka ayay qabsatay cabashada iyo dibadbaxyada noocan ah ee ka dhacayay labadii toddobaad dalkan Sweden. Qoysaska Soomaaliyeed ayaa walwal joogto ah ka qaba mustaqbalka carruurtooda. Qaarkood ayaa ka mid noqday qoysaska ay saameynta ballaaran ku yeelatay carruur ka qaadista baahsan ee ka socota dalka Sweden. Halkani waa Barta Shidan. Halkani waa Barta Shidan. Waxaan samaynaa fiidiyoyo ku tusaya adduun ay saxaafaddu ku guuldareysatay in ay soo bandhigto. Waxaan tagnaa goobo inta badan aan la soo bandhigin ama aan la gaarin. Sidoo kale waxaan nahay dad, waxaan la hadalnaa dad. Ma jirto koox, gobol, dal ama dad gaar ah oo aan col la nahay. Mana jiraan kuwo aan si gaar ah saaxiib ula nahay. Inta badan waxaan nahay dhexdhexaad. Waxaan